Bismillah, awalan salaamu calaykum dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba aad joogtaan. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo. Waa walaashiina Dr. Jiyaa iyo macluumaad ku saabsan caafimaadka. Bismillaahi kariim, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhego xanuun. Dhego xanuun yaa rabaa maanta inaan ka hadlo hadduu alla awoodo leh idmo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay ama ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkayga Dr. Jiyaa, kusoo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan. Subscribe saar, like dheh, gambalelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo geliyo mar waliba. Wixii macluumaad ahna inagu reeb commentiga. Dhego xanuunka waa xanuun ku dhaca dhegaha, inflammation of ears ayaa loo yaqaanaa. Sidoo kale, dhego xanuunka waxaa loo qaybiyay laba qaybood oo kala ah: dhego xanuun ku soo bood ah oo loo yaqaano acute otitis, iyo dhego xanuun soo daba dheeraada ama iska daba dheeraada mid soo raaga oo loo yaqaano chronic otitis ayaa loo yaqaanaa. Haddaba aan sii gudgalno, acute otitis waa dhego xanuun ku soo bood ah, wuxuuna u qaybsamaa laba qaybood: external otitis ayaa loo yaqaanaa iyo medial otitis ayaa loo kala yaqaanaa. Haddaba aan ku hormarno otitis external, waa dhego xanuun ku dhaca maqaarka jilicsan ee dhegta gudaheeda. Dhegta gudaheeda ayuu ku dhacaa, waana maqaarka jilicsan ayuu saameeyaa. External otitis waxaa sababa waxyaabo dibadda dhegta uga yimaada, mararka qaar fungus-ka ama cambaarta keena. Calaamadaha dhego xanuunka waxaa ka mid ah xanuun dhegaha ah, malax ka timaada dhegta, maqalka dhegta oo yaraada. Treatments maxaa lagu daaweeyaa dhego xanuunka noocan oo kala ah? Sii bukaanka aspirin tab 300 mg for pain ayaa siinaysaa. Ku dhaq dhegta normal saline ayaa ku dhaqaysaa 1 x 2 ayaa ku dhaqaysaa. Sii bukaa penicillin V tab 250 mg. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani.